nebiga wuxuu ka sheekeeyey laba nin baa dhul kala iibsaday ninkii dhulka iibsaday ee dambe baa dhulkii qotay wuxuu ugu tegey dhari weyn oo dahaba oo malaayiin albawnaad baa lagu qiyaasi karaa maanta haddii la yidhaah dharigii dahabkaa markuu meesha ugu tegey muuna qarsanin ma qaadanin wax soo qaaday ninkii hore ee dhulka ka iibiyey buu u tegey wuxuu yidhi warniyaho dhulkii aan kaa iibsaday dharigaan dahabkaan ugu imid ee qaado adaa iska leh kiina saaxibu iimaan buu ahaa wuxuu yidhi war anigu dharigan maba ka warhayo waa wax dadkii hore ay meesha kaga tageen anigu maba ogeynba midda kale dhulka wamaa fiihi baan kaa iibiyey oradoo igala tag adaa iska leh maya malihii anaa leh labadii nin way isqabsadeen maxay isku qabsadeen adaa leh iyo adaa leh hadda adduunka maanta waxaa la isku haysta anaa leh iyo anaa leh wey maanta maxkamad adduunka ka samaysan ma jirto ilaa waxay kala xukuntaa laba isku haysta anaa leh iyo anaa leh maxkamad bay nimankii tageen nebigu wuxuu yidhi fataxaakamaa waxay u xukan tageen hadda maxkamad bay aadeen nin bay u tageen inuu kala xukumo oo waxay isku haystaan war dahabkan adaa leh iyo adaa leh ninkiina nin fiicanoo saaxiibu iimaan buu ahaa ma uusan odhan arrintaani hanti qaran weeye ee idinkoo orda duurka iska galaa muusan odhannin warhaye maxaa isku haysateen dahabkanaa isku haysannaa anaa leh iyo adaa leh iyo adaa leh markaa wuu fahmay dad sharaf leh oo yihiin saxaabu iimaan inay yihiin labaduba wuxuu yidhi wax carruura ma leedihiin nin wuxuu yidhi haa wiil baan leeyahay kii kalena wuxuu yidhi gabadh baan leeyahay allayleh waa sidii ugu fiicnayd wiilka iyo gabadhaa isu guuriya dahabkaana ku nafaqeeya waxna iska sadaqaysta duurkiinnana gala sidii buu u soo kala diray